وإنسان أصحابتي المنطقة حايدين مدى حلقة لبعد تحنينا كورينتان بلا waxaa ka codsanayna subscribe isaasi like taadana ilaa mahadsanid xaqada ruuxin wajud markay shan qolkay soo gashay dhanka waxaan arkaynaa linkii wiilalkiisa uu gurigeeda keenay shaam waxaa arkaysa shaam hooyadeeda kadib wuxuu siinaya album ay ku sawiran yihiin sawiro iyadana ay ku farxaysaa waxa meesha maana shaam hooyadeeda waxay weydiinaysaa qof uu yahay asaga wuxuu ku dhahay waxaan dhahay linki shaam waxay ku dhaysaa waad weynaatay kadib wuxuu siinaya hadiyad waxay ku dhaysaa gudaha soo gal asaga wuxuu dhahay maanta soo diyaarin laakiin maalin kale ayaan idin maanaya kadib wuu ka tagayaa hooyadeeda waxay ku dhaysaa wiilka markaad yaraydeen wuxuu ku jiray aan ku guursanay indhiisa waxa ay muuqdeen inuu ku jecel yahay ilaasho anka mundu waxa maanishin saaxiibteeda waxa ku dhasay gurimiisa ilaabin karta asaga wuxuu maanishin wuxuu ku dhahay man raacaysa ayaan ma ay dhaysa anka ligi wuxuu dareemay in shin soo daaday banaanka waxaan arkaynaa shin guriga soo socdo waxna gadaashay ka maqlaysaa qajaf kadib waxa gadaal ugu caylinkiyoon dib waxay weydiinaysaa wuxuu halkan ka qabanaa asaga wuxuu dhahay hawayaan soo doontay dib waxay ku dhasay alaabaan soo qaadan rabaa asaga wuxuu dhahay waan ku raaxaya xogaa kadib waxaan arkaynaa ayuu guri imaanayo asaga wuxuu weydiinay waxa ku sameeyay rabtiyeen waxay ku dhasay waa sii gadaysaa faa'iido uga helo telefonka ay soo gaday asaga wuxuu ku raayay lambarka geli kadib wuxuu gelinaysaa lambarkeeda wuxuu ku raayay cunto ayaan u baahanahay wuxuu soo qabanaysaa baasta asaga wuxuu ku dhahay anaga ay cunto noo karinayo wuxuu maanay jikada wuxuu soo karinayaa cunto weyn wadaanayaan intaas wax lagu yahay wuxuu wacay doctor Shaw wuxuu weydiisnay inuu lacag ma ay asaga uu ku yeelayaa inuu markay guriga imaad waxay arkaysaa balkoonka oo laga hagaajiyay TV cusub oo guriga la keenay asaga wuxuu ku dhahay horta qolkaas soo fiir kadib waxay arkaysaa inuu computer cusub u keenay farxaysaa waxay weydiinaysaa halkuu lacag ka keenay asaga wuxuu ku dhahay baqtiyaan nasiib ayaan ka helay wuxuu siinay kaarkiisa wuxuu ku dhahay la ku ku jirtay adeeg qaadayinkaas waxay shaqadeeda joogto waxa maanay muumadu xarka gabdhaha shaqada shaqeymad kamid ah waxay dhaysaa waxaan ogaaday inay shin saaxiib leedahay uu maqan yahay duun uu ogyahay kadib waxa ku dhaysaa waxaan u tagnay shin waxaan ku leeyahay gurigaaga ku raacayna kadib waxa maanay shin waxaan ku dhahay maanta gurigaaga aan ku raacayna kadib soo raacaya waxaan fariin diraysaa lingiyo waxaan ku dhaysaa asxaabteeda ay la soo socdaa isqaray waxay maanay guriga waxa albaabka furaanay iyadana way naxaysaa soo soo dhaweynay waxaan ku dhahay maanta oo dhan ayuu ku sugay kadib gudaha ay soo galayaan fariisnay duun wuxuu lingiyo weydiinay shin wuxuu yahay yan wuxuu ku dhahay jecelkeeda ayaan ahay gurigeena aan ku noolahay saaxiibadeen waxay shin ku dhaysaa asagu maqayn soo ma dhahayn laakiin wuxuu dhahay habay saxantay laakiin si laan filaan ayaa u imaaday wuxuu keenay hadiyad wuxuu ku dhahay shinteeda masaakiin marka shaqo joogtaan caawiya way soo baxayaan saaxiibadeen waxay ku dhaysaa saaxiibka uu ku jecel yahay ilaa shaqo dib ay baxayaan gudaha soo galaysaa waxay leeyihiin ku dhaysaa dhuumayaan ku dhahay maxaa dhuumaysaa asagu wuxuu ku dhahay saxaabtada marka sidaas ma ay qarinaysaa waxay weydiinaysaa ku lacag ka keenay waxay ku dhaysaa marka miyay nasiib ku heshay asagu ma ay u dhahay wuxuu tusnay kaarka uu siinayay inuu xisaasan wuxuu dhahay 200 ayaa ku jirtay inuu ku qiimaysaa waxay ku dhaysaa intaas oo maxaa u isticmaashay waxna saan qolkay soo geeysaa maskaxdeeda waxay ku dhaysaa lacagtada miliyadii maxaa waxna aqaysaa gidbaydo taagsanaysaa banaanka soo isha fadhiisnaysaa san wuxuu ku dhahay miyay xanaaqsantahay waxay ku dhaysaa maya wuxuu tusnay laptop wuxuu ku dhahay hadii uu kaadam xitaa ka baxay wixii ku socday inuu keelaysaa kadib waxay ku dhaysaa waan sii jiifnay inuu ka tagaysaa maankii waxaan arkaynaa guriishiina albaabka la soo furay lingiina uu dhuumanaya inay shaqada joogto waxa la soo diray sawirka dibna soo cararaysaa markay guriga imaad waxay arkaysaa saaxiibadeeda kursi ku xiran weyna ka furaysaa waxay ku dhaysaa saaxiibay ma gubtaa inuu sawirkan saaxiibka ayaan hayay dhaysaa waxay ku dhaysaa saaxiibay filmkii kaarkeyga ayaga xataa halkan buu sii joogi karaa hayay dhaysaa najan uu naxay kadib wuxuu ku dhahay musqushiga caawinaan aado saaxiibadeeda naxsa kadib waxay geynaysaa musqusha kadib qolka ay soo galeen shin waxay saaxiibadeeda u sheegaysaa sidoo gurigeeda ku imaaday lingiyo waxay ku dhaysaa saaxiibay inuu warka yeelayo umaleynaya hal wax ma ka codsan karaa hayay dhaysaa waxaan arkaynaa iyaga oo cunteynaa shin waxay lingiyo ku dhaysaa wax ma ka codsan karaa saaxiibadeeda ma jiri kartaa inaad tahay boyfriendkeeda si aysan waalidiinteedu qasbin ninka aysan rabin sanha ayuu dhahay laakiin sharti waa inay shiina raacda iyadoo ka ogolaanaysaa ninka wuxuu imaanayaa filmkeeda hooyadeeda waxay dhaysaa wuu qurxoon yahay hooyaabeen wuxuu dhahay adoo saamir ayaa kursi curiyaa marka fadhisaa maxaad qabsan rabtaa isaga wuxuu dhahay kamban technology ayaan fulan raba kadib nolosheeda dhan waxaa kusoo koobayaa gabadhaada way soo baxayaan shiina waxay isu daldalaysaa xabidan badan weyna dhacaysaa waxaan soo qaaday linkiyo waxay imaanayaan guriga waxay jiifinaysaa fadhiga saaxiibteeda waxay ku dhaysaa wad qolkaaga aadayeen waxay dhaysaa asiga anaga ayaa leh saaxiibteeda mayaabtaas wax markay soo kacday waxay arkaysaa saaxiibteeda oo fariin u reebtay waxaan ku dhahday in London ay u socdo si ay soo dhaweysay waan ku maasantahay kadib waxay ogaanaysaa inay siintahay weyn soo cararaysaa xilligan ku dhaysaa shaqada waan ka dhahay waan sii baxay asaga wuxuu dhahay ma xasuustay wixii xalay dhacay maya ay dhaysaa weyn ka tagaysaa maalinka habeenka shan iyadoo shaqadii kasoo baxay waxay gadaasheed ka maqlaysaa dhawaan markay fiirsan waxay arkaysaa inuu yahay muunadu wuxuu ku dhaysaa adiga ilaa hadda biximay asaga wuxuu ku dhahay anigu ku jeclahay maxaa ninkaas ayaa raacday wuxuu soo dayay inuu u dhawaado iyadana darbaxsha ay ku dhufanaysaa way kasoo cararaysaa qol ay isku xiraysaa asaga wuxuu ku qalinaya inay albaab furto wuxuu isku dayay inuu ku furayo inay cabsanaysaa waxay soo xasuusanaysaa ayuu yar mar sidaan oo kale qol loo xiray hooyadeeda inay ku dhahday gabadheeda waan ku soo laaban doonaa kadibna dabaqay ka soo dhacday dhanka muunadu wuxuu albaab ku soo jiibinaya shin isagoo dhanka ay soo socon waxa madax loo dhufanaya baruun suuxaya waxaan ogaanay inuu yahay linkiga kadibna wuxuu arkay shin oo suuxsan uu soo qaadaya wuxuu keenay guriga way soo kacaysaa waxay ku dhahaysaa sidee halkaas ku imaatay asaga wuxuu dhahay wixitaankay markay ka soo jawaabaysay ayaan imaaday ninkaas ma sii
isweydiin doona habeenkaas waxaan arkaynaa Shiin oo shaqadeeda imaanaysa xasuusnaysaa wixii uu Mumdu ku sameynayay kadib gudaha ay soo galaysaa asxaabteeda waxay bilaabayaan inay caawiyaan kadib waxay arkaysaa Mumdu oo alaabtiisa qaadanaya asxaabteeda waxay sheegayaan shaqada laga buriyay ka bursanaysan ogeen habeenku waxay imaanaysaa gurigeeda iyadoo bacweyn wada waxay Lingi u sheegaysaa in shaqada laga buriyay waxay ku dhaysaa maamulaha iga helay laakiin 50 sano ayuu jiraa soo iga heli karaa wilaayada beenta aad ku jirtay iska taay orjiif kadib qolkeeda ay imaanaysaa waan jiifanaysaa kalnigi waxa soo wacaysa gacantiisa waxay sheegaysaa in shaqada laga buriyay taas waxa soo kacay wuxuu ku dhahay xalay si fiican miyaa u jiiftay idan ha ay dhaysaa kadib soo fariisnaysaa waxaan arkaysaa warqad asaga wuxuu ku dhahay si idan way ka diidaysaa kadib si kaas ay soo dhacayaan waxay ku dhaysaa musqushaan soo dhaqaya way ka soo tagaysaa kadib soo baxaysaa waxay u keenaysaa ice cream kale waxaan arkaynaa Mumdu oo shaqada laga soo buriyay waxa maana nin gaari wato wuxuu ku dhahay anu lahayn shaqada laga soo buriyay Mumdu wuxuu ku dhahay adiga tahay asan wuxuu dhahay waxaan nin ku caawin lahaa Shiin shaqada ka soo baxay waxa markii hore maana Mumdu way naxaysaa inuu guriga wuxuu TV ka fiirsnay inay kaamiro soo qabteen in isqarinayo waxa teleefankeeda markii qonis kadib wuxuu wacay asxaabteeda waxaan sheegay inay marar soo baxday kadib waxa maanis gacantiisa waxa ku dhaysaa farsax waxa loo baahan yahay ganacsadayaasha oo la kulanto waxaan arkaynaa Mumdu iyo Shiin oo salfadii asaga wuxuu karaajinay wuxuu habeen raad ku sameeyay inuu ka xafiyay dhaysaa dhanka waxaan arkaynaa Lingi iyo gacantiisa raanay Shiin wuxuu gacantiisa ku dhaayay halkan ugu dajiyay Shiin wuxuu Mumdu ku dhaysaa inuu ku fahmay waxa si ka soo maadan sameeyay wuxuu ku dhahay ma fahamtay laakiin ay fahamtay maxaasas uu sameysay Lingi wuxuu raanay Shiin wayna xisaab wuxuu ku dhahay adeeg dartada ay shaqadiga soo buriyay waxay rasaa laakiin waxaan ka dambeeyay asaga afka ayuu ka qabanaya Lingi soo raanay wuxuu dhulka arkay furaheeda Mumdu soo Shiin afduuban waxa ka soo gaaray Lingi dhulka ayuu ku dhufnay kadib wuxuu soo qaaday Shiin iyadoo soo kacaysa wuxuu ku dhahay fiican tahay dhanka waxa soo kacay Mumdu wuxuu soo qaaday wuxuu dhawr ku dhufnay Lingi raacaya wuxuu soo inuu Shiin wato waxaan ku soo kacay Lingi wuxuu lugtu dhufnay wuxuu soo aaday Shiin dhankeeda soo kacay Lingi wuxuu madaxa u dhufnay wuxuu soo xayaa Lingi asaga uu soo xayaa waxa dhankiisa soo xareysa Shiin waxaan isgacantiisa Shiin waxay ku dhaysaa in mustaqaaniin waxay ku dhaysaa gaari kor kadib way soo raacayaan dhaysaa maxaa ku wacayaan waxay dhaysaa ali ay ugu kartaa ali waxay ku dhaysaa anigu badbaadi wixii leeyahay baana uu baasameeyay waxay maanay guriga Lingi uu soo kacayaan waxay dhaysaa ninka aniga iyo booliskiina ciqaabtiisa uu maray idinka iska taxadar weyn ka tagaysaa kadib asaga wuxuu ku dhahay ninkaas dartiisa ay markale dhaawacay soo gaarayeen way ka raargelinaysaa waxay ku dhaysaa wajarkaaga san wuxuu dhahay waan degdegsana sidaas ayayna u soo tagay ali mid kale ayaan ku keenay ayay dhaaday iska daa waxay ku dhaysaa si uu madcinaysa maadaama aysan dhan ku caawinayso saad wuxuu dhahay waxa la yaabaa inay iga heshay guriga soo galay asaga wuxuu ku dhahay balan qadina ninkaas dambu la kulmin doonin waxay dhaysaa lacaladu asaga ka hor imaadaysan wuxuu dhahay aniga ay ku joogo kadib balan ay wada galayaan qoraal qoray gacantiisa wuxuu ku dhahay ninkaas indhaha ku haay ninkaas waxaan arkaynaa shaawo maalinta habeeyada ku dhaysaa mashruuc makaasha asaga wuxuu dhahay laakiin wuu adag yahay ninkan waxa loo baahan yahay in nimanku diisadeen waxay dhaysaa deesaas mashruuc waan ka qaadanaya dhahay waxaan maqlaynaa Lingi raanaysa ninkaas iska day niman gadaasha soo socda ka faa'iideyso iyadana ay yiraysaa dhanka Lingi waxa soo wacaysa gacantiisa waxay ku dhaysaa waxa loo baahan yahay in shirkadda uu soo laabtay hadii ka Lingi fahmo ka faa'iideysnaya ku dhahay hadda ma laakiin waa soo laaban doonaa warinkiisa meel xaliyeen waxay dhaysaa laakiin duu qof ayaa ku qasbay inuu falkaas ku dhaqaaqo waxa gadaashiisa iska dashay waxay ku dhaysaa yaa walaal hadlaysaa wuxuu dhahay liya ayaa walaal hadlaya uu soo baxay wuxuu arkay wuxuu soo xasuusnaya Shiin kadib uu soo qaadaya gacantiisa Shiin waxay dareemaysaa in soo dawgalayo in soo dagaysaa iska dhigaysaa mid baar ku socotay waxay dhahay laakiin baarka ay u socotaa laakiin dhulka ay ka soo baxaysaa dhanka waxaan arkaynaa Shiin oo dilbir waxay meesh ku arkaysaa Lingi soo dawgalaysaa iyadoo wishka rabto waa laga reebayaa waxa lagu dhahay fasaxo miisid kadib waxay arkaysaa gacantiisa Lingi oo wishka kala korayso kadib ay sii chikinaysaa waxay imaanaysaa naagta soo dhaweynta fadhiso waxay dhaysaa ali ayaa leedahay qol ayaan bukin gareystay waxay ku dhaysaa nin kursi curiya mid fadhiya ayaa kaarka qaaday Lingi gacantiisa waxay ku dhaysaa iyaga waxay rabaan inay la kulmaan nin kursi ku fadhiyay kan waa dejiyay waxaad ku qasban tahay inaad aadid wuxuu dhahay kan dadkaas aan filan u dhignay gacantiisa waxay ku dhaysaa Shiin uu sheegaysaa iyadoo way ka walwalaysay dhanka Shiin waxay imaanaysaa gurigeeda xasuusnaysaa markay gacanteeda ku dhaysaa inay sidii maleynaysid markuu Lingi ku dhahay iyada ma iga heshay waxa fariin soo diray Lingi wuxuu ku dhahay shaqooyin ayaa ku jira markaas oo dhameystan ayaa ku imaanayo hay'adda dhanka waxaan arkaynaa shirkad Blamey Lingi fan wuxuu dhahay ma santii mas'uuliyad saartay waxaan u soo bixi doonaa sidii u dhiibatay xasilan filan albaabka uu soo galay Lingi dadka oo dhan way naxayaan Lingi fan halka mas'uuliyiin doona waxa ku ogaan xalqa soo socota waa kuma santahay daawashada waa xalqada xigta bye bye